Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada aqoondoon channel. Haddaad tahay daawado ku cusub channelka, fadlan like saar muuqaalkan, subscribe dhe channelka oo taabo gambaleelka si aad u hesho muuqaal walbo cusub oo aynu soo dhigno. waa muuqaalkeenii sagaalaad ee HTML5 waxaan uga hadlaynaa sida table loogu sameeyo bogga HTML-ka. Taggan waxa uu leeyahay attribute-yo sida borderka, ballaca iyo jooga. waxaana si faahfaahsan ugu arki doonaa tusaalaha. Tagga tr waxaa loo isticmaalaa in lagu qeexo rowga table-ka, waxaana waajib ah in lagu dhex qoro tagga table gudihiisa. Table-ka waxa uu yeelan karaa wax ka badan hal row. Tagga td ayaa lagu qeexaa inuu yahay daatada table-ka, waxaana loo yaqaanaa cell, waana in lagu dhex qoraa tagga tr gudihiisa. aynu u gudubno qaybteennii practicalka. ugu horeyn aynu soo kicino text editor-ka, kadib waxaad imaanaysaa qaybta baadhiga. markaan imaano, ugu horeyn waxaan furaynaa tagga table. enter dheh, waxaad dhex imaataa table-ka gudihiisa. kadib waxaad leedahay borderka ha ila mid noqdo 1. intaa markaan qorno, waxaan furaynaa tagga tr. kadib waan xiraynaa. tagga tr waxa inoo suuragelinayaa inaan sameyno row. rowga markaan sameyno, waxaan rabnaa inaan ku dhex qorno headerka daatada aan kusoo bandhigi lahayn. kadib waxaan leenahay tag fur th dheh, enter. tusaale kale, waxaan u baahannahay inaan sameyno data aan kusoo bandhigno imtixaan la galay, ardada imtixaanka gashay magacooda iyo maado walba waxa ay ka keeneen. rowga noogu horeeya ama headerka noogu horeeya wuxuu noqon doonaa magaca, enter dheh. mar labaad waxaad furtaa tagga th oo u taagan headerka, enter dheh. waxaad ku qoraysaa maadadaad rabto inaad soo bandhigto. tusaale kale, waxaan rabaa inaan soo bandhigo vb.net. maadada xigta waxaan ka dhigi doonaa SQL. maadada saddexaadna waxaan ka dhigi doonaa Java. maadada afraad oo ugu dambeysana waxaan ka dhigi doonaa Python. intaa markaan sameyno, hadda waxaan sameynay headerka. waxaan u baahannahay row kale inaan sameyno oo aan kusoo bandhigno magacyada ardada iyo maado walba natiijada ay ka keeneen. waxaad imaataa tagga tr hoostiisa, waxaadna furaysaa mar labaad tr, enter dheh. waxaad ku dhex qortaa tagga td oo inoo soo bandhigi doonaa daatada seelka ku jirta. intaa markaan sameyno, waxaan ku dhex qoraynaa magaca ardayga. tusaale kale, waxaan leenahay jaamac cali axmed.
muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.